su-aasha odhanaysa walaalkay oo adag baa jiro qallafsan xalkuna waxa weeye inaanu kala goono oo aanan wada soconin adigu ku dadaal inaad xidhiidhiso sida ugu sahlan waayo kala tagga iyo muqaatacadu waa ta qur-aanku uu diiday macnaha in dadka qaraabadii ay isgooyaan fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum acma absaarahum cadhadaa iyo nacdashaasuu qur-aanku u yabahay qofka qaraabada gooya markaa isagu hadduu ku jarayo ku xumaynayo adigu hagaaji wax sii telefoonka u dir iska daba soco nin baa nebiga u yimi salى اllahu calayh wasalam wuxuu yihi qaraabaan leeyahay waan xidhiidhiyaa way gooyaan waan wanaajiyaa way xumeeyaan hadday sidaa tahay buu nebigu waxaad ka dhigantay inaad dambas kulul afka ugu guraysa iyo rarar oo kale adaa ka macaashaya iyagu kaa macaashi maayaan markaa midhka kula gudbane waxa weeye xilkii sharcigu ku saaray inaad gudato waxba ha goynin hadduu isagu ku jaraya aad ugu xidhiidhi